noqdo waa idin soo socdaa anoo tour sameyn doono Yurub la socod wanaagsan si kastaba ha noqotee soo jireen ka dhaqankiyo Soomaalinimadan dadka kaga sareeyay. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wanaagsan markii soo tinta alag joogto markii dibjinkeena markii koraysan soo boqotaan haday tahay subscribe like share comment iyo kumaasantii ka bilaashay ku biilitaankin aad iyo aad ugu maasantii markii taariikhda madax ka hadalna muddo saabsan fanaanka Suldaan Seraar bariyahan dad fanaanka haystay dhagaha dadka social media iyo yahan bulshada Soomaaliyeed Suudaanka geeska oo u malaynayo waqti xaadirka fanaanka horeeyay jirin yani geeska Soomaalida waliba lagu tilmaami karo inuu yahay fanaan isaga kooxna ku jira hadafankiisa fanaan hormariyo aad iyo aad runtii heeso badan oo waqti yar gaaban milyan iyo dheeraad ku gaadhin soo saaray oo tartanka Soomaali Music Award ka qayb galaya oo u diyaar garoobaya kolaysa la saadaalinayna laga yaabo inuu qofku ku guuleysanaysa aad loogu badan saadaashay tahay socdaal laakiin inuu ku tagayo wadamada Yurub oo dhamaantood sidoo uu sheegay isla la shaaciiba iyo inta wadan maray xilligu baxayo inta isagoo si noo sheegay oo uu nagala wadaagay Snapchat-kiisa isagoo muuqaal soo dhigay isaga iyo fanaanka Cabdi Dhaanto oo ka yimid Muqdisho markii la xidhay ku sugan sabab labadooda sabab ay sugan muuqaal yar oo nagala wadaagay in yar waqti oo tagay bal in yar soo haraagan yar dadku maadsan kalkaasi wallahi hadda Muqdisho joognaa dayurna fanaanka sifax loo soo dhaweeyo loo kala kiciyo laakiin waxaan idin sheegaa la dhicin sifax loo soo dhaweeyo loo kala kiciyo insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo waa idin soo socdaa anoo tour sameyn doono Yurub la socod wanaagsan afarta bisha soo baxaya insha Allah Yurub afarta bisha labaad wadarta ma filayaa fanaanku wuxuu sheegay in uu tagay Yurub oo dhan marayo socdaal Yuruba oo ku tagay dhamaan baxayana afarta bishan imika caawa aan jeclayn labada taay waqti xaadirkan baalka duubayo labada uu baxayo oo ka bilaabay Paris tan saaqooday Yurub oo dhan ka bacdi Ingiriis ku tagayo oo waqtiga la qabanayo bishan aan jeclay February 16 tahay barnaamijkan Somali Music Award oo markii ugu horeysay la bixinayo يعني لسيني فنان سوماليات لوجا بالمرنيو وأنا مركي أوريسي فنانين السوماليات لو قبني حفلة عين كانوا كلام فنان كوجه سوينا سنة لوجا بالمرنيو كل السوماليات كلنا ما عدي جورس سوينا وحنوج هاي نتيرو أمريكان موسيقى أوارو كلا هاي نتيرانو كلا يدوي فربدين هذا ساتري عادي يدوي بدين مركوا عالم كلنا كتير ويان لكن مركي أوريسي برنامج كنا سوق اسمه كل أنت كور هيا وحمام كيس جود برنامج كان عندكوا هيا oo yani maamulaya oo loo dhiibay managerkiisa iyo soo xulitaanka fanaaniinta marka foodka laga yimaado yani kala saaristooda waxa loo dhiibay DJ Sweer oo ah isaguna nin caana xagga funka ku dhex jira DJ ah balse laakiin isaguna qof celebrity loo yaqaan kulleed ka sheekeyn maayo marka maamulkiisa guud gabahan waxa loo dhiibay barnaamijka DJ Sweer laakiin saadaashu waxay sheegaysaa in fanaanka Suldaan Seraar سن إلى حقوقنا كسر حقتي جرا مركون يربى كلاي إن لا بدنا يقف حقوق ليس كر برامج كيني هاي مركا وسي ديار جرو وكسي دواشها إنه تجاه هالكاس إنه مقدر وسي تجي يوروب كلي إنجليز كوكب حي يوروب وكبر هاي نحالي بوكب حي أو جبيهان بوكب حي جبيهان بوكب حي يوروب وهذا يوروب كمان ده لكن كل السعرات تيجي واحد بعطيكم سيجرت وتيكرا قف كيفيس تأوفيسين وتيكرا إن markaas fanaanka kulay intii u codeynaysa Suldaan Seraar xaq oo soo commentiga aan la qabsanana kulay inkastoo bilaaban foodkii oo wali la bilaabin laakiin wali soo yahay oo website-ka caadi loo furin oo xilligii foodka la bilaabay si toos ah loo gudagelin kulay aan malan 15 bishan bilaaban intii la sheegay kulay waxaan ku hambalyeynaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka banka ka agdhow dhamaantood inay markii ugu horeysay qabanayaan barnaamij fanaanka lagu abaalmarinayo yani waxaan ogeeyno fanaanka in Nairobi oo kala lagu qabto barnaamij lagu abaalmariyo fanaanka laakiin adduunka oo dhan fanaanka oo dhan joogta barnaamij loo qabanayo oo ka tirjumay magaciisa Soomaali oo dhan Somali Music Award markii ugu horeysay la qabanayo aad iyo aad ugu amaanayaan cid soo gaasintay iyo maamulkeeda cid fikradiisa ka dambeysay waxaan soo kala aad ugu amaanaya cid hadda maamulkeeda gacanta ku hayso dhigay sawirka uu ka yahay kulay qof inta badan motivation la ku taashalan inuu yahay u malanay isaguna agaaska barnaamijka oo qayb ku lahaa يعد كستو كده بس إنك صار لكوا عدين كده عده شخصيا كاس إذا توصل كوجود من سبرانك إني صوبون دكتور أو لقبته عده يعني مسكحيا لحيد يعني عدين كرين يجلس من سلطان سيرارنا وقت حاضر كان اللي هي ما ده برنامج كلا قبنا يو تقول عده كم مرة إن شاء الله بدي لك المود تشوفنا
halka in insha Allah billahi karim ku sugnaa waqtiga uu dhaco cid ka guuleysata kullu lagu kala maqnaan maayo sidoo kale waxa xamaasadeeda la kala sareynta insha Allah billahi karim fanaaniinta insha Allah marka la bilaabo website kala furo waxaan soo inta oo qof kasta la footeynaya markaas cidii kolba kor marta ama sare marta insha Allah halkan baan kula wadaagi doonaa insha Allah billahi karim bulshada ka warhayn doonta dadkuna waxaan ku wargelin lahaa inay u diyaar garoobaan yani codeen fanaaniintooda inta fanka shaqada kale fanka xiisaysa inay codeen fanaanka jecel yihiin kale anigu coday baan sii maanta waxaan isku dayna codayo marka waxaan sii coday channelkii weli lama furin baligu weli open song ku jira weli lama furin markaas 5 bisha weeyaan oo ayaa aakhirkan ogaaday in la furaayo marka aad iyo aad badmaastii bulshada midacad joogtaan waxa la karaam korkiina haato rayurno waxa la fanaanka soo dhaweeya kale Suudaan Siraar Suudaanka geeska taxadarka in taagan weeyaan marka la soo dhaweeyaan guys idinkuna aad iyo aad badmaasantiin waxa la see you next inshallah